Isticmaalka qoraalka caadiga ah si aad u diyaariso dukumentigaaga waa ku fiican tahay inta badan kiisaska. Laakiin shay u baahan abaabul dheeraad ah waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isku daydo miis. Tani waxay kuu oggolaan doontaa inaad geliso qoraalkaaga tiirar iyo saf halkii aad ka geli lahayd khadadka ama cutubyada. Samaynta miis si aad u abuurto miis cusub kaliya geli shaxda ka bacdi muuse dulmar shabakadda si aad u doorato tirada unugyada aad rabto. Miiskaygu wuxuu noqon doonaa mid aad u weyn, 6 tiir, 6 saf. Hadda dhagsii oo jadwalku wuxuu ka muuqdaa dukumentigaaga halkaas oo aad ka bilaabi karto gelida macluumaadkaaga. Haddii aad hore u haysatid qaar ka mid ah macluumaadkaaga, ha warwarin, uma baahnid inaad eber ka soo bilowdo. Tusaale ahaan noocaan u qaado. Jadwalka waa mid adag in la akhriyo qaabka uu hadda yahay, laakiin waxaan si fudud ugu beddeli karnaa miis dhowr tallaabo oo keliya. Ku bilow adiga oo dooranaya qoraalkaaga ka bacdi ku laabo tabka gelida oo dhagsii jadwalka. U beddelashada qoraalka miiska. Hadda dhagsii qoraalka u beddelo miiska oo dooro mid ka mid ah xulashooyinka halkan si aad u kala saarto qoraalkaaga. Waa sidaan ereygu u yaqaan, waxa lagu dhajiyo tiir kasta. Qoraalkayga waxaa lagu kala saaray tusaalaha, laakiin cutubyada, hakadka, iyo calaamado kale ayaa sidoo kale shaqayn doona. Markaad diyaar noqoto, dhagsii og qoraalkuna wuxuu ka soo muuqan doonaa miis. Si aad u geliso macluumaadka, keliya dhagsii unuga aad rabto. Waxaa kale oo aad isticmaali kartaa furayaasha fallaadha ee keyboardkaaga si aad u dhex marato. Si aad u geliso tiir ama saf, dulbood miiska bannaankiisa mid ka mid ah qaybiyaasha unugyada. U fiirso calaamada lagu daray ee soo muuqata. Waxa keliya oo ay tahay inaad samayso waa guji. Word wuxuu ku dari doonaa tiir ama saf goobtaas. Tirtirka tiirarka iyo safafka waa sidaas oo kale. Marka hore dooro unug ku jira xadka aad rabto inaad tirtirto. Kadibna midig guji ka dooro delete else menuka. Tusaalahan waxaan dooran doonaa delete oo dhan safka dabadeed dhagsii ok. Ku darista qaabaynta markaa tani waxay u muuqataa mid aad u wanaagsan. Waxaan filayaa in aan diyaar u ahay in aan ku daro qaabaynta qaar ka mid ah si aan miiska uga dhigo mid sahlan in la akhriyo, sidoo kalena aan siiyo midab. Taas awgeed waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay tabka naqshadaynta ama tab layout, kaas oo soo muuqda mar kasta oo aad haysato cursorkaaga miiskaaga. Hoos naqshad waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo qaababka miiska ah oo aad ka dooran karto, kuwaas oo aad ku dul jiir karto si aad u aragto. Si aad u hesho liiska buuxa, dhagsii falaarta hoos u dhaca ee geeska. Qaabka miiska ka warankan. Markaad dooratid qaab, waxaad habayn kartaa habka loo dhigay adigoo isticmaalaya xulashada qaababka jadwalka halkan. Tusaale ahaan waxaad go'aansan kartaa inaad isticmaasho qaabaynta khaaska ah ee tiirka koowaad, xuduudaha miiska, ama safka madaxa. Dhammaan kuwani waxay yeelan doonaan saameyn ka duwan iyadoo ku xiran qaabka miiska aad dooratay, marka waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad tijaabiso si aad u hesho muuqaalka aad rabto. Waxaa laga yaabaa inaad dareentay in miiskani uu xuduud u dhexeeyo inta badan unugyada. Si aad wax ugu darto ama u beddesho xadka, kaliya dooro unugyada aad rabto in aad wax ka beddesho ka bacdi u fiirso kooxda xuduudaha. Halkan waxaad dooran kartaa qaabka xariiqda, miisaanka xariiqda iyo sidoo kale midab xadkaaga. Qaabka jadwalka. Markaad diyaar garowdo, dhagsii fallaadha hoos u dhaca ee ku hoos jira amarka xuduudaha ka bacdi dooro meesha aad rabto in xadku aado. Hoos naqshad waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo qaababka miiska ah oo aad ka dooran karto, kuwaas oo aad ku dul jiir karto si aad u aragto. Si aad u hesho liiska buuxa, dhagsii falaarta hoos u dhaca ee geeska. Qaabka miiska ka warankan. Markaad dooratid qaab, waxaad habayn kartaa habka loo dhigay adigoo isticmaalaya xulashada qaababka jadwalka halkan. Tusaale ahaan waxaad go'aansan kartaa inaad isticmaasho qaabaynta khaaska ah ee tiirka koowaad, xuduudaha miiska,
ama safka madaxa. Dhammaan kuwani waxay yeelan doonaan saameyn ka duwan iyadoo ku xiran qaabka miiska aad dooratay, markaa waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad tijaabiso si aad u hesho muuqaalka aad rabto. Waxaa laga yaabaa inaad dareentay in miiskani uu xuduud u dhexeeyo inta badan unugyada. Si aad wax ugu darto ama u beddesho xadka, kaliya dooro unugyada aad rabto in aad wax ka beddesho kabacdi u fiirso kooxda xuduudaha. Halkan waxaad dooran kartaa qaabka xariiqda, miisaanka xariiqda iyo sidoo kale midab xadkaaga. Qaabka jadwalka markaad diyaar garowdo, dhagsii fallaadha hoos u dhaca ee ku hoos jira amarka xuduudaha kabacdi dooro meesha aad rabto in xadku aado.